waxaan ka hadla doonayaa waxyaalo aan u dhaqanahay dadka reewdan iyo salan oo baryahani ku soo saayday oo aan u arko anigu xanuun labada gobol soo galay inuu yahay iyadoo yani dadka aad moodid waxyaalo hore loogu gudbay oo ummadii waqtiyadii horeba horumar lagu gaari waayay dadka qaar ay ku xarogoodaan oo ka hadlayaan mar walba oo aad iyo aad u xun oo qofkii dameer leh aad iyo aad uga naxayo waxaa waliba dhibtu taalaa yani dhalinyarada ayaa waxaan soo jeedinayaa waxyaalaha lagu shaqeynayo ree hebel ree qurac iyo ree galoon iyo ree mara ee laga hadlayo inay ka digtoonaadaan ka ilbaxaan wax la qaadan karo oo qof bilaadan oo dameer leh oo mutacallimna u qaadan kara aanan ahayn waxaan garoon ka hadlayaa dadka dibadda waxay ahaayeen kuwii noo keeni lahaa horumar iyo ilbaxnimo waayo waxay joogaan meelo hore loogu maray ilbaxnimadu maalinba maalinka uga socoto yani hore loogu maray halkii ay nooga keeni lahaayeen waxyaalaha ay ku dayan lahaayeen haddii dadku bilaadanku qof waa qof keena wax cusub kusoo siyaadiya adduunyada qofna waa dad ku dayda waxaa cusub ee jira laakiin waxay noqdeen nimanka qurbo joog dad wixii yani halkii ay ka samayn lahaayeen wixii horumar ama ay ku dayan lahaayeen waddanada ay joogaan horumarka ay ku tallaabsadeen dad wax laga tegay oo laga naxo uun ku soo hadlayo ree hebel iyo ree qurac iyo ree mar walba ka soo hadlaya dibadaha waayo dibadda waxay og yihiin ilbaxnimadu iyo heerka ay marayaan matalan waad arkaysaan dadku bini-aadanku qofku wuxuu wax ku yahay dadkan la jooga dadka oo waxaan laga maarmi karin maraykan baad arkaysaan maanta dad buu guranayaa inta milyan uu yahana waad arkaysaan kuwa kala kaxaynaya maanta dadka ree awdal iyo ree boorama ee isku abtiga ee meel kala tegayna meel aan kala tegayn dabka ku dhex shidaya waa inay ka xishoodaan oo ay ka yeersoodaan waxaasaan anigu odhan lahaa waana wax aad iyo aad loogu naxo wallaahi marmar baan habeenkii murdada ka toosaa marka yani waxyaalaha dadka ku dhex jira waxaana weeyaan qofka bilaadan aqoonta leh ama mutacallinkii waxa uu yani uu kaga duwan yahay dadka kale waa inuu horumar iyo tallaabo fiican adeegsado oo waxaan u bartay uu yani ay ka soo baxaan waxaan u bartay ay ka soo baxaan laakiin ma aha inuu si jaahilnimadii dib ugu noqdo oo aanan cid horumar ku gaari karta ayna jirin xumaan iyo dhib una dadka wada degan ee walaalaha ah una gelin ninkii muxuu ahaa xasan sheekh muumin ninkii gabayaaga ahaa ee yani dawo hadday boqoto maxaa lagu daweeyey waxaan odhan lahaa hoggaanka kore ee maanta gobolada salaliya awdal ee dhaqmeedyadu waxyaalo aad iyo aad looga naxo ayaa beryahan ku soo kordhay oona awal ayna u lahayn odayaal dhan oo intii t v soo taagaan odhanaya ree hebel baa nahay yani waa wax laga xishoodo oo laga naxo oo t v-gii la wada daawanayo oo ku nafaanaya mugta inay ree hebel yihiin oo waxyaalo aad iyo aad looga naxo waxaana anigu waxaan odhan lahaa inay joojaan nimanka maamulka kore odayaasha dhaqanku waayo waa dadkii hadday wax xumaadaan wanaajin lahaa odayaasha dhaqanku waa hoggaankii halka ugu sarraysay haddii hoggaankii halka ugu sarrayso bukooday horta dhibteeday leedahay horta ilaahayna inoo soo hadeeyo waxaanan leeyahay waxaa inay dib uga noqdaan dhallinyaradana waxaan leeyahay inay waxaasi ayna qaadin waa jaamacada dhigataan mutacallimiin baa tihiin sidee baad waxaa xun damiirkiinu ni siinayaa inaad dib ugu noqotaan iyadoo adduunyada horumar iyo midnimo iyo halka la marayo aad ogtihiin sidee baad ugu noqonaysaan wixii ka awow laga soo gudbay dhalinyarada waxaan leeyahay usha aad iyo aad uga digtoonaadaan walaaltinimada ha ilaaliyaan ha isku tagaan waxaasi seeska inta laga soo dhiso arrinkaa aad iyo aad halowna ayaan mudanayaasha baarlamaanka isla markaana siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka awdal
heer kan waxa gaarsiiyay loo kala bulshada reer awdal maanta ka hadlaysan ragina siyaasiyiinta marka ma heerkii aad gaarsiiseen ayaad bulshada dib ugu soo celinaysaa inaad ka daweysaan bismillahir rahmaanir rahiim horta anagu ma gaarsiin heerka waxaan gaarsiin karnaa anagu waxaan ka fikiraynay xildhibaanaan ahayn gobol kale naga soo doortay xildhibaano qaran oo nahay waxaan ka fikiraynay yani xisbinimadu waxa weeyaan waa wax laga gudbayo beelaha iyo reeraha waxaan ka fikiraynay in sanadada dambe ay noqdaan qofku يعني أنت أنا نبص لهم وحمر هير كل تا هو قبضناان لكن يا وحنا قبنا يقول كاوض يا وحق قبنا إن شاء الله أفر ولا لان هنقضانه إن هير كجاري دون تنا نكفكرين لكن هير نكون قطع نكون مفكرين وحنا واحد النغمات بوها نحل بانو أنا ما قرنا يدي وح قف دي بلاد ندق سوالين ما هنا إنه أرن كقدم بيو أو كتير تفسينه يدك وواحد لقنا حلبان واحد جري حلبان لو كترسن قوليهن أو كوا قرص دي كوا برلمان كوا مال به وجس كوتش كوتش ويلي على سوق هالجار دجال بعد عيه سام برا ده حيو سوق منه نوسوق مدن وتيفي ده لقطع مدن كوا سمية هين كوا يقول يدتك وسيهر بودي إن أرمعك سوق اللي عندنا ولو أنا دبعت كده هل كان القضية حلية وحرموي يجيب بالشدي لحدة دي ولا ليه هي بالله في الدم خصوصي في الدم ويجيب كده ليش سياسيته من الرات كلها هين horta siyaasiyiintu waa markaa quraahata kuway hadleen bini-aadankuna dee horta wada sax maaha wayna ku khaldanayaan baan oran karaa anugu ereygaa iyagoo mas-uula inay ereygaa yidhaahdaan maahana moogta wax loo wada nisbayn karo siyaasiyiinta guud wax horeba usii taagnaa bay ahaayeen iyagu si u arkeenba laakiin hadday yani wanaag ahaan u arkayaan ereyga hadlayaan siyaabo kale inuu xaliyaan baa ka fiicnaan lahayd xildhibaan waxaa jirta in marka hore wada hadalka iyo wacyigelinta iyo wax isku sheego uu ka horeeyo in saxaafada uu wixii u gudbo wali adigu intaad canaanta aad saxaafada uga gudbinayso wali oday dhaqameedyadan aad carabka ku dhufatay kuway doonaan ha noqdaane wali wax hadal oo aad u jeediso ay ka diideen ma jirta wallahi waxaan intaan la kulmay tiro male mid walba gaar ahaan oo la kulmay aad iyo aad badan tahay guriga waan ugu tagay iyagoo odayaal oo dhan shirayaan u tagay in badan ma ka qayb qaatay laakiin haddana weli wixii uu sii socdaa laakiin aad iyo aad baan ugu dadaalay mid walbana Soomaalidu waxay tiraahdaa af musiibo lagama dhowro waxa weeyaan waxa maanta socday waxa weey waa musiibo iyo eeg tahay yani xabadu mar afka ka bixin yani waxba lama dhowrto hadalka door intee leeg ay xukuumaddu ka qaadan kartaa iyo madaxweyne ku-xigeenka ugu sarreeya gobolka iyo xukuumadda sare imika madaxweynaha sii haya inuu arrintaasi soo farageliyo miyaan waajib ahayn waa waajib laakiin waxa weeyaan horta kolleyta waxba dhici maayaan oo xagga masiibada aad nagu soo dedejinaysa aan uma arko in wax dhici doonaan laakiin waxaba xunba waxa lagu socdaa oo wax u dhimaysaa horumarkii isku tirsanaantii fikirkii yani horumarka inagoo og dhulkeenu sida uu yahay maanta horumar la-aanta doowyada aad arkaysid waxyaalo badan ilaahay dhaqaalaha aad arkaysid yani halkii horumar aan kaga fikri lahayn inaan dib ugu noqono inaan inagu yani waxyaalo laga xumaado ah aan ku noqono ay dhib tahay xukuumadduna way ka qayb qaadan doontaa maanta laga bilaabo intii dadaalkayga intii kartideeda laakiin xukuumadda haddaan wax lala qaban kelideed wax ma qaban karto oday dhaqameedyo badan oo labada gobol ayaad carabka ku dhuftay markaa kuwa ay yihiin kuwan bulshada iyo dhalinyarada iska horkeenayaad sheegayso magacaantooda ma noo sheegi kartaa oo ma caddayn kartaa horta odayaasha waa waxaad ogtooda waa nimanka tv-ga mar walba ka hadlay laa bilow laa ka hor taasi waa wax iska cad waxaanan leeyahay yani dhalinyarada inay qaataan fikirka maadaama ay mutacalimiin yihiin maadaama dadkii maanta maskaxdii shaqaynaysa ay yihiin maadaama ay yihiin furihii horumarka dhalinyaradu waa inay ka waantoobaan oo hadday hadlaan ay khaldameen ayna iyagu ku dayan odayaasha.